qorshahan ayaa khamiistii maanta laga daafuray magaalada Muqdisho waxaana diiradda lagu saarayaa daryeelka dhallaanka Soomaaliyeed. Soomaaliya oo lagu tiriyo wadamada dunida ugu badan xagga dhimashada dhallaanka iyo hooyada ayaa hadda loo diyaarinayaa qorshahaasi daryeelka 5 sano ee soo aadan. wasaaradda caafimaadka ayaa hadda ku hoolan dejinta istiraatiijiyadda qorshahaasi si loo yareeyo dhibaatada dhallaanka Soomaaliyeed ee wajahayaan. Madasha daahfurka qorshaha qaran ee dhallaanka Soomaaliyeed waxaa ku sugnaa mas'uuliyiinta wasaaradda caafimaadka, deeq-bixiyaasha dhanka caafimaadka ka baritaara wasaaradda iyo bahda caafimaadka. Waxaana la sheegay in weli ay dhibaato ka jirto dhanka daryeelka dhallaanka iyo hooyada. Waxaana sidoo kale la tilmaamay in muhiimadu ay tahay fulinta qorshahan si dhibaatadaasi loo yareeyo. In that sense, again, I think that this essential newborn action plan is an important strategy for us to embark on. The leading causes of neonatal mortality are complications arising during labor and delivery, prematurity, and infections such as pneumonia, tetanus, and sepsis. To prevent these deaths, it is therefore imperative for us to invest in the establishment of cost-effective newborn care interventions, both at facilities but also in communities. agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Cabdullaahi Xaashi oo madasha ka hadlay ayaa qeexay dhibaatada haysata dhallaanka Soomaaliyeed. waxaan meesha ku qoran aan jeclahay hadda ka horna in ka soo dadka ila yaabeen cudur cunug laga difaaci kara hadaa ka difaaci wadaada dilay wada runtaa wadamadan horumar ciidan cunug baabu hadii ilaahay amarkiisa qof ku dhufato oo qofkii dhinto ma soo tago cunugga hadaa adoo daaweyn kara daawada SSD isla ma soo tago because we have to imagine marka xaqiiqda runtaa waxa weeye dhimashada cunuggaaga tii Allah haday u timaado laakiin dadaashay waa laga sameeyaa laakiin haddii adigu cunug daaweyn weedo cunugga saas u dhinto waa cunug la dayacay mas'uuliyadda dhimashadeedana qayb baad ku leedahay. wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka Fuusiya Bikar Nuur ayaa ka hadashay qorshahan qaran oo ay soo diyaarisay wasaaradda iyo muhiimadda qorshahaasi. wada dadaalna qorshahan sidii loo kamili lahaa looga shaqeyn lahaa meel walba oo Soomaaliya ka mid ah haddii aan leeyahay sababtoo ah gobolka waxaan u maleynaa ugu sii liita waa jiraan laakiin Soomaali mushkilaadkeeda cudurrada u dhimata waa isku wada meel laga soo bilaabo raaskamboon ilaa raas xafuun problemyadeena isku mid waa cudurrada aan u dhimana waa loo kala badan yahay laakiin waa isku wada mid marka dadaalka ha ahaado mid ka bilowdo corner ilaa corner aan ka wada shaqeyn hadii alla idmo. wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay ku holaneed dejinta istiraatiijiyad muhiim u ah arrimaha caafimaadka. qorshahan maanta la soo bandhigay ayaa horseedaya wax ka qabashada dhimashada dhallaanka Soomaaliyeed iyo sidii loo yareyn lahaa dhimashadaasi dhallaanka ee sababta waxyaabo laga hortagi karo. Salaaman Xaaji Xamdraagi, Somali Cable, Muqdisho.